بسم الله موضوعاً كهلنا wuxuu yahay qoysaskeena Soomaalida meel walba ay joogaan ma istaageeraan haddii qof uu rabo wuxuu dadka sameynayo wax ka duwan uu sameeyo taageero siino haddii aan nahay dadka Soomaaliyeed siba familiyada dhexdooda haddii aad rabtid in aad horumar gaartid waxaad arkaysaa in adeerada oo ku hagranayo waxaad arkaysaa in adeerada oo xumaataada raadinayo oo xumaataada ka shaqeynayo haddii aad rabtid in aad tilaabo qaadid waxaad arkaysaa dad kaleeto oo waalidkaaga ah ama ehelkaaga ah oo ku hortaagan oo kule saas ma sameyn kartid haddii aad hami dheer leedahay dadka kuugu xigo rabo inay ku niyad jabiyaan dadka kuugu xigo rabaan inay ku sheegaan in aad waxba ahayn in aad waxba qabsan karin in aad dadka ugu liidato laakiin si haddii aad khibradaas soo aragtay ama aad ku sugan tahay haatan in mar walba dadka cadowga kugu ah familiga iyo reeraha aad ka soo jeedid ay yihiin mar walba kuwa xumaatadaada raadiyo ee iyaga yihiin mar walba dad xanta ka socoto haddii aad aragtid arrinkaas maxaa sameynaysaa waa wax inaad isweydiisid ee aad iyo aad u fiican tahay horta familiga waa waxa ugu horeeya ee noloshaada waa meesha ka soo asaasantay haddii marka waalidkaaga iyo walaalihii kula dhashay iyo in adeerada aysan taageero kugu siin karin horumarkaaga ay ka soo bixi waayaan booskooda familinimo laakiin rabaan inay ku soo celiyaan oo ah adiga laba tilaabo qaadee kuma ogolin kaalay anaga safkeena taagno iyo waxyaabo la mid ah waxba ha sameyn ee kaalay adiga agteena joog adiga weligaa daciifnimo ku jir ee tahayba jawaabtooda sidaas familkaaga hadday noocaas yihiin familka noocaas oo kaleeto ha ku darsan xumaantaada iyo samaantaada hadalay iyaga dhahaana ha u joojin haddii in adeerada ay yihiin dadka kugu dhow haddana cadowgaaga ah mar walba xumaantadaada ka shaqeynayo haddii aad la caytonto meesha way sii xumaanaysaa way sii adkaanaysaa haddii aad adigana xumaantadii kugu sameynaya inaad ku samaysid waqtiga ayaa kaa lumaayo waxaad iloobaysaa naftaada iyo horumarkaaga marka looma baahna inaad ku mashquushid marka wadada ugu fiican waxay tahay in aad tiraahdo waa familkayga waan jeclahay waa qalbigayga way dhaleen waan ka dhashay waan ku faanaa looma baahna wax xumaana inaan u geysto looma baahna inaan ku daydo haddii marka ay ka soo bixi waayeen booskii ahaa inay familnimo ahaan ii taageeraan ee garabkayga istaagaan ee mas'uuliyadda iga saarneed ee gudan waayaan waxaan leeyahay ay gudan waayeen mar walbana dad garab taagan oo maaragtay wax walba ii sameyn kara ee noqon waayeen kuma dayanaya laakiin aniga wax jawaab ah igama helayaan uma jawaabayo dantayda oo kaliya baa ka raacanaya adiga intuu qofkan caaytamayo xantamayo mar hore aad naftaada horumar isgaarsiisay asigana intaas adiga ayuu kugu sii mashquulsan yahay soo biri saa hoostaada fadhiyo oo adiga garab iyo caawimaad kaaga baahan oo markaasaad su-aal naftaada waxaad weydiin doontaa qofkan adiga markuu kugu mashquulsanaa muxuu horumarkan oo kale isku gaarsiin waaye marka waa waxyaabo inta badan dhaca waa waxyaabo mar walba dhaca ee Soomaalida u badan yihiin familkaaga marka wax ka fiican ma leh waxaa rabtaa inay ku wanaajiyaan oo wax allaala waxaad rabtid ee kuu sameeyaan ee mar walba wax kasta kugu taageeraan oo wanaag ah waxaa rabtaa marka wax kasta ood qabatid inay ku dhahaan maasha Allah wiilkayga ama gabadhayda waad noo soo baxday guul ayaad noo soo hoysay waxyaabo caynkaas inay niyadda ku dhisaan inay ku dhiirigeliyaan mar walba haddii laakiin se meeshaad ka rabtay ay imaan waayaan laakiin ay yihiin dadka kuugu dhow oo mar walba rabaan inay dib ku dhigaan ee dadka shisheeye ee banaankaas ka taagan kaaga fiican waxaan ku oran lahaa xumaan ha ugu bedelin waayo waa reerkaaga
xumaatadaada iyo xantaada iyo hoos u dhigaaga intay ka shaqeynayaan adiga horumar isgaarsii adiga naftaada ka shaqeey adiga heer iyo sharaf isgaarsii maalin maalmaha ka mid ah ayaga intay ku hoos imaadaan ku oran doono caawimaad baan kaaga baahanahay adigana waxaad weydiin doontaa su'aasha ah war intaad igu mashquulsaneedeen maxaad wax u qabsan weydeen ayaga ayaad weydiin doontaa su'aashaas familada Soomaalidana siba way iska dibadan yihiin wallahi haddii familkaaga ay hortaagan yihiin riyadaada iyo waxay naftaada doonayso marnaba ha u ogolaan in ay kaa joojiyaan riyadaada because waa familkaaga waxaa la rabay inay wax walba kula garab istaagaan inay ku saacideeyaan inay mar walba ku dhiirigeliyaan ee niyada ku dhisaan marka wixii xumaanaha ee kula fariistaan ee kaala hadlaan ee ku dhahaan maxaa ku kalifay arrintan xaq bay u leeyihiin inay kaala hadlaan ayagoo weliba wanaag ku muujinayo haddii mararka qaar adigoona xumaan sameynaynin ee kugu qayliyaan macnaha ku caayaan adiga hadal